Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa maxay forum? Muxuu faa'iido leeyahay? Miyuu ka duwan yahay website-yada? Maxaa lagu qabtaa forumka? Dhibaatooyin miyuu leeyahay? Sidee loo sameeyaa forum? Intaasiba waa inta aan kaga jawaabi doono xalqadan. Ha ka fogaan markaa. ugu horeyn waa maxay forum? Forum waa wax sida website-ka oo kala ah, laakiin website iska ah oo loo isticmaalo in lagu xayeysiiyo wax iyo in bulshadu ay su'aalo iyo jawaabo isku weydaarsato oo ay sameeyaan website-yada waaweyni isla markaana loo adeegsado advertisement iyo xayeysiis iyo waxyaabo fara badan. Marka forum waa shay muhiim ah oo adduunka oo dhan laga yaqaan, si fiican loo isticmaalo. Luqadda qalaadna loo yaqaano forum, halka luqadda af carabigana loo yaqaano muntada. Forumku waxay soo shacbixeen sanadihii ugu dambeeyay ee ilaa 10 sano ahaa, waxaana si xoog ah u qabsadeen bulshada caalamka iyagoo isku xidh sameeyay wax laga akhristo, faa'iidooyin, mowduuc intay soo dhigaan, su'aalo iyo jawaabo la iska weydiinayo, discussions iyo falaqayn iyo waxyaabo aad u fara badan. Haddaba forumku muxuu faa'iidooyin leeyahay? Faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah waxaa loo adeegsadaa in la horumariyo gabayada iyo tiknoolajiyada iyo kulanka dadka, oo dad fara badan ayaa ku kulma. Tiknoolajiyadana waxaa lagaga soo qaataa waxyaabo fara badan oo discussion ah, buugaagteeda ugu fiican iyo luqadaha ay ku qoran yihiin ayaa lagu soo bandhigaa. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinkeeda discussions iyo doodo loo qabto dadweynaha oo ay sameeyaan iyagoo ka doodaya mawaadiic gaar ah. Forumka kale wuxuu kaga duwan yahay ujeedadiisa. Haddii uu tiknoolajiyada ku saabsiisan yahay mawaadiic badan oo tiknoolajiyada ku saabsiisan iyo faa'iidooyin iyo su'aalo iyo jawaabo iyo buugaag ayaad ka helaysaa oo forumkaasi uu awoodda saaraya. Haddii uu wax kale ku saabsan yahay kolba mowduuca ayuu ku xidhan tahay discussion-ka laga sameynayo. Waxaa ka mid ah su'aalo iyo jawaabo ku saabsan mowduuc la soo qaatay oo lagu sameeyo forumka. Isku xidhnaanta bulshada caalamka. Waxaa forumka iskugu yimaada bulsho kala duwan oo kala jinsiyada ah. Sidoo kale waxyaabaha faa'iidooyinkiisa ugu waaweyn waa xayeysiinta. Forumka waxaa lagu xayeysiiyaa waxyaabo aad u fara badan. Shirkadaha haddii wax loo xayeysiinayo, even haddaynu soo qaadno tusaale ahaan, Google waxay leedahay forum u gaar ah, Microsoft waxay leedahay forum u gaar ah, shirkad kasta oo weyn Facebook waxay leedahay forum u gaar ah. Shirkad kasta forum ay yeelataa, dadweynaheedu su'aalaha ugu soo qoraan kadibna ay uga jawaabto shirkadaasi. Marka forumka faa'iidadiisu waa advertisement iyo su'aal iyo jawaabo, waxyaabahaas ayaa loo adeegsadaa. Marka website imika tusaale ahaan muxtarif oo kale waxa uu sameysanayaa forumka su'aalo iyo jawaabo ayaa la soo weydiinayaa, ama macalinka hala weydiiyo ama ardaydu ha is weydiiso. Discussions baa loo furayaa, waxyaabo fara badan ayaa lagu qabtaa. Waxaa kaloo loo adeegsan karaa erayo ku qoran 3D. waxyaabaha uu faa'iidooyinka gaarka u leeyahay website-yada qaar baan waxaan ogolayn 3D qoraalka warwareegaya, ama inaad soo geliso code ku soo geliso mooyaane. Ama sidoo kale website-yada waxa emoji marks, calaamadaha emojiga la yaabka iyo kuwaas ee Facebook oo kala calaamadahaas ayaa aad u aragteen oo forumiska ku qoran, sida shaashadayda ka muuqata forumyada halka ku qoran oo kale. Sidoo kale forumiska waxa wax kasto xayeysiin iyo qurxin ah ayaa lagu dari karaa oo aad bay u qurux badan yihiin. Discussionsna waa lagu sameeyaa. Intaas waa faa'iidooyinka guud ee forumku ay leeyihiin. Dhibaatooyin way leeyihiin. Maxaa ka mid ah? Su'aasheena xigteen ka jawaabayna waxa weeyaan, dhibaatooyin miyuu leeyahay? Dhibaatooyinkiisa uu yeelan karaa waxaa ka mid ah cayda. Bulsho maadaama iskugu yimaado safar badan, diimaha lagu caayi karaa, diimahaas ka hor iman kara mowduuca laftiisa markuu si qalad u dhaco waa la caayaa. Waxyaabahaas ayaa ugu weyn. Waxa kale aan cay ahayna adiga soo baari doona ee uu leeyahay ceeb kaloo intaas ah uma garanayo anigu. Sidoo kale waxaan kaga jawaabi doonaa miyuu ka duwan yahay website-yada. Dabcan website uu yahay oo wax kasta oo online loo isticmaalo waa website, laakiin website-ka waxa uu kaga duwan yahay isagu kaliya wuxuu u gaariyay wixii xayeysiin ah iyo discussions ah iyo su'aalo iyo jawaabo ah. Marka isaga video iyo waxaasna laguma soo garo, waxa uu badan yahay qoraal
ayuu badan yahay iyo xayeysiis iyo su'aalo iyo jawaabahaas iyo discussionska ayuu badan yahay iyo groups ku kulmaya intaas ayuu badan yahay waana inta uu kaga duwan yahay website-ka maxaa lagu qabtaa forumka dabcan forumka inta sheegnay lagu qabtaa way isku soo noqonayaan waa intan baa lagu qabtaa faa'iidooyinkiisa baa lagu qabtaa dhibaatooyinkiisana way ka soo hadalnay sidee loo sameeyaa forumka sida website-yada loo sameeyo in yar ayuu ka duwan yahay balse ma rabno xalqadan imika inaynu ku soo qaadano waynu soo sameyn doonaa forum laakiin si guud waxaanu uga hadlaynaa forumku waa maxay forumku waa free forumiska waxa jira markaad sameynayso qaar website aad ku dhex sameysanayso oo website intaad gasho aad website-ka ka sameynayso kuwaas oo kale waxay u badan yihiin qaar trial oo muddo ka dhici doona 15 cisho bil 6 bilood muddadeeda ka dhacaya qaarna waxa jirida qaar free oo muddo iska soconaya oo free kuwaas ayaynu isticmaali doonaa oo aynu ku sameyn doonaa xalqadaha dambe balse hadda waxaan filayaa inaad ka dharagsan tahay forumka waxa weeye forumka waxaan soo isticmaalay muddo dhan 2014 oo dhan ayaan soo isticmaalay forum dabcan imika idin sheegi maayo linkigiisa idin siinayo balse 2014 sanadkaas oo dhan tijaabo ayaan ugu jiray oo aan sameynay ka hor inta aanan sameyn blogan marka faa'iidooyin fara badan ayuu leeyahay oo aan ku arkay dhinaca xayeysiinta iyo qurxinta mowduucaad ka hadlaysa qoraalka ku qoran in adoo isticmaalaya ereyo emoji fara badan calaamado fara badan oo ka buuxa oo free qaar aad soo download gareynayso qaar aad sameynayso gebigoodaba online aad isticmaali doonto dabcan xalqadan ku xigta aynu arki doonaa sida loo sameynayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.